waxaan shacbiga reer Somaliland ugu bishaareynaa in maanta laga heshiiyey arrimihii doorashada la isku hayay oo ay ugu muhiimsanayd tabashadii ahayd in komishanka xubnihiisa la kordhiyo taasoo saddexda xisbi isku waafaqeen in iyagoo midaysan loo gudbiyo golaha wakiilada si wax kaabis iyo wax ka bedel loogu sameeyo xeerkii hore ee madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka faqradiisa 11aad waxaan shacbiga reer Somaliland u sheegaynaa iyo dhammaan xildhibaanadii muddada dheer sugayay inay doorashada ka qayb galaan inay u diyaar garoobaan maanta in doorashadii ay maanta laga heshiiyey khilaafkii waxaan kaloo ugu baaqaynaa golayaasha qaranka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso arrinta doorashadu inay suurto geliyaan in doorashada lagu qabto wakhtigeedii aynu muddaynay ee ahaa December 12keeda haddii ilaahay ka dhigo wixii ku xidhan axsaabta iyo wixii ku xidhan madaxweynaha iyo wixii ku xidhan golayaasha waxaan jecel lahay cid waliba wixii ka khuseynayay inay arrintaas dedejiyaan oo ay dhammaystiraan waxaan kaloo qodobka labaad aan ugu gudbayo arrintaasi waxa weeyaan maanta arrinta nabadgelyadu Somaliland muhiim bay u tahay astaanta Somaliland kaga duwaneyd Soomaalinta kale waxa ahayd nabad marka nabaddu waxaan doonaynaa inaanu ka wada shaqayno gaar ahaan gobolka Sanaag oo maalmihii ugu dambeeyey dadka shacbiga iyo ciidanka qaranka iyo dad reer Somaliland oo iyaguna hubaysanima ay isku hor joogeen waxaan ugu baaqaynaa marka hore in nabadgelyada mas'uuliyaddeedu cid walba saaran tahay dhammaanteedna xilkaasi inay wada saaran yahay kana wada shaqayno si aynu arrintaana u soo afjari lahayn nabadana u adkaysan lahayn una xoojin lahayn kalsooni buuxaan ku qabaa shacbiga reer Somaliland inay ka go'an tahay in nabaddooda ilaashadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi